maafiyadu waa kooxo si abaabulan u gala dambiyo kala duwan sida ka ganacsiga daroogada, hubka, dilka qorsheysan iyo xatooyada, waxaana lagu yaqaanaa inay yihiin kooxo waxyeelo u geysta bulshada iyadoo ujeedadoodu tahay inay lacag iyo awood badan ka helaan ayna jibiyaan sharciga. asalkoodu waxa ay ka soo jeedaan jasiiradda Sicily ee dalka Talyaaniga, balse hadda waa laamo si weyn ugu fiday dalal badan oo dunida ka mid ah. kooxaha maafiyada ah sida Yakuza ee Japan ka dhisan waxa ay tiro ahaan ka badan tahay ciidanka booliska ee dalkaasi. inkastoo maafiyada lagu yaqaano dhibaatooyin iyo dambiyo, haddana mararka qaarkood waxa ay sameeyaan waxyaabo dadku u arkaan wax wanaagsan, waxayna u muuqdaan inay isku dayaan inay muujiyaan naxariis, samafal iyo wadaninimo. muuqaalkanin waxaan diiradda kuugu saari doonaa kooxahaasi maafiyada ah ee mararka qaarkood isu roga samafalayaal iyo difaacayaal qaran. maafiyada koowaad, Yakuza oo ka dhisan Japan, waa koox maafiya ah oo laga yaqaan Japan, waxaana lagu tiriyaa kuwa ugu awooda badan dunida. inkastoo ay ku lug leeyihiin dambiyo fara badan, haddana marka ay masiibo dhul gariir ama tsunami ama dhibaato kale xitaa ay dhacdo, Yakuza waxay si dhaqso ah ugu gurmadaan dadka dhiban, waxayna bixiyaan cunto, busto iyo agabka caafimaadka, xitaa mararka qaar lacag ayay bixiyaan. tusaale ahaan sanadkii 2011 markuu dhacay dhulgariirkii weynaa ee Japan ka dhacay, Yakuza waxay gacan weyn ka geysatay gurmadka shacabka. Yakuza waxa ay leeyihiin nidaam sharci kaasi oo ku sheegaya qof iyaga ka mid ah haddii uu kooxda qalad ka galo, waxa uu sameynayaa si iskiis ah in uu far isaga jaro isagoo muujinayo xishood iyo mas'uuliyad. maafiyada labaad, Pablo Escobarkii Colombia, waxa uu ahaa hogaamiyihii kooxda Medellin oo ahayd kooxdii ugu weyneed ee darooga sameynta iyo dhoofinta. inkasta oo uu ahaa ninkii ugu dambiyada badnaa xilligii 1980-meeyadii, haddana Escobar wuxuu si weyn ugu shaqeeyay horumarinta nolosha dadka saboolka ah. wuxuuna dhisay guryo, iskuulo, garoomo kubadeed, wuxuuna maalgeliyay dhalinyarta. xitaa wuxuu isu taagay in uu noqdo madaxweyne isagoo ka ballan qaaday bulshadiisa inuu bixin doono deenta qaranka. maafiyada saddexaad, Al Capone. Al Capone wuxuu ahaa maafiyihii ugu caansanaa Chicago intii lagu guda jiray xilligii dhaqaale xumada Great Depression-ka. intii dadku la daalaa-dhacayay gaajo, Al Capone waxa uu furay South Kitchens oo ah meelo dadka lagu siiyo cunto bilaash ah. dadka saboolka ah ayaa safaf dhaadheer u gali jiray si ay u helaan saxan cunto ah oo uu bixin jiray Al Capone. taasina waxay noqotay sabab uu dad badan u kasbaday, isagoo ka kasbaday sumcad wanaagsan, inkastoo uu weli ahaa dambiilo weyn. maafiyada afraad waa maafiyada Albania. kooxaha dambiilayaasha ee Albania waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu adag ee Yurub ka jira, waxaana lagu tuhmaa in ay ku lug leeyihiin ka ganacsiga daroogada, hubka iyo tahriibinta dadka. laakiin xilligii dagaalkii Kosovo, kooxahaasi waxay taageero u fidiyeen shacabka Albaniyaanka ee dhibku gaaray, waxayna taageereen ciidamada Kosovo ee UCK-ga, waxayna deeqo ku bixiyeen gargaarka shacabka iyo dib u dhiska tuulooyinkii burburay. maafiyaha shanaad, Shi Jae-shangi, waa maafiya ka soo jeedo Taiwan, waxa uu caan ka ahaa dalkaasi Taiwan. inta uu noolaa wuxuu taageero u fidiyay dadka saboolka ah, isagoo si joogto ah ugu deeqi jiray lacag, guryo iyo adeegyo bulsho. markii uu dhintayna ilaa 20,000 oo qof ah ayaa ka qayb gashay aaskiisa, taasoo muujinaysa sida shacabka Taiwan ay u qadarinaysay ninkaasi. maafiyada lixaad waa kooxda Moral Mob. kooxdani waa mid ka mid ah dambiilayaasha ugu waaweyn ee dalka New Zealand, waxayna caan ku tahay rabshado iyo daroogo. si kastaba ha ahaatee, kadib weerarkii argagixiso ee ka dhacay magaalada Christchurch sanadkii 2019, waxay si lama filaan ah u muujisay kooxdani taageero, waxayna ballan qaaday inay ilaalin doonto masaajidada xilliga salaada si aysan weeraro kale ugu dhicin. tanina waxay la yaab ku noqotay dad badan, waxayna kor u qaaday kooxdani sumcadeeda. maafiyada toddobaad waa maafiyada ka jirta dalka Mexico. xilligii xayiraada ee COVID-19-ka, dadka Mexicaanka badankoodu waxa ay waayeen shaqooyinkooda. dowladdan waa ay awoodi weysay dadka inay u fidiso taageero dhaqaale. kadib kooxaha maafiyada ayaa meeshan fursad ka arkay kana faa'iideystay. kooxo badan oo maafiya ah waxa ay bilaabeen
inay dadka siiyaan cunto, lacag iyo qalab caafimaad. tanina dad badan waxa ay ka dhigtay in ay taageeraan maafiyada iyagoo ka arkay nafis iyo naxariis. maafiyada sideedaad waa tan lagu magacaabo ARA, Irish Republic Army. waxay ahayd koox u dagaalanta madax banaanida Ireland. inkasta oo ay galeen falal badan oo rabshado ah, haddana waxay door weyn ku lahaayeen in ay ilaaliyaan afka Irishka iyo dhaqanka. waxay sidoo kale taageereen dagaalo qarannimo iyo horumarka dalkooda, balse markii dambe waxa ay isku rogeen kooxo dambiilayaal ah, taasoo markii dambe dhaawacday sumcadoodii hore. ugu dambeyntii, inkastoo kooxaha maafiyada iyo kuwa dambiyada abaabula laga neceb yahay adduunka oo dhan, haddana mararka qaarkood waxa ay sameeyaan waxyaabo wanaagsan oo bulshada anfaca. waxayna dadka tusaan in xitaa qofka dadka ugu xun mararka qaarkiis uu naxariis iyo wadaninimo uu sameey karo. si kastaba ha ahaatee, ma bedelayso xaqiiqdooda ah in ay dambiyo u geystaan bulshada ayna dhaawacaan. haddana maafiyadu weli waa cadowga ugu weyn ee sharciga iyo nabadda. laakiin dhacdooyinkaas waxa ayna tusayaan in xaaladaha qaar dadka ninka ugu xun uu noqon karo gargaaraha ama u hiiliyaha bulshada. haddaba aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. fadlan isku day wixii fikirkaaga ah inaad qaybta commentiga iigu reebto iyo muuqaalka dambe waxa aan kaga soo hadli doono.